حسن الشيخ مدحويني هورا Soomaaliya oo ku dhawaaqay oo hadda aan dhageysano kaliya maahan waxa jirto muddo hadda ilaa dhowr bilood inaan ma aragtay aan daba soconay oo miidida ay na tusinaysay xarakaadka iyo dhaqdhaqaaqa oo Xasan Sheekh la damacsan yahay dalka markii uu ma aragtay ka soo noqday dibadda ayaan muddadan badan aan dhageysanaynay waxayna markaan u hurgalnay noo muuqatay inuu yaani qaab mucaaradnimo asagoo adeegsanayo ragii ma aragtay 20 bilood maalintuu ka degay oo looga adkaaday doorashadii February 2017 ilaa hadda 17 December February ilaa hadda in la abuurayay oo la raadinay dawladdan oo hadda joogto oo 20 bilood jirsatay inaynan cagteeda ku istaagin wadanka inay wax u qabanin in carqaladeyn oo midba midka kale ka dambeeyo lagu soo waday kulli Soomaali weyn waa ka dharagsan tahay laakiin maxay ahayd iyadoo taas ma aragtay loo dul qaadanayo inay ka timaado carqaladeyntaanayto iyo waxa la dhahaa cunaqabataynta ee dawladda cusub oo Soomaaliya ee maanta ay xisbiyadan mucaaradka ku sameynayaan inuu horseed ama vanguard u noqonayo madaxweynihii hore Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo 4 sano soo hay oo dawladii transition ka looga baxay dawladda Sheekh Shariif waxay mid transition oo si peaceful loogu dhiibay oo dawlad Soomaaliya la aqoonsan yahay ama dibadda haata ama gudaha haata inkastay wali civil war ki socday lama filaynin inuu maanta 2 sano iyadoo la gaarin oo inta Muqdisho ka soo degto oo yiraahdo waxaan u ahay horseedo xisbiyo oo aan midayna xisbidaas oo hadhow maartay la dagaalama dawladda maanta taagan mid oo aad dadka wax garadka laakiin soo sharciyan xaq uma lahan qofka siyaasiga ah inuu samaysto xisbi siyaasadeed maxamed xasan sheekh xisbi oo democratic leader the people oo awal madax u ahaan jiray oo yaani dib daan markii la fasirana la yiraahdo xisbiga dama jadiid ayuu u ahaan jiray gudoomiye taasuna tartanka ku galay 2012 cidna maanta ka hortimideen ma jirin laakiin hadda markuu ka dhacay meesha oo ka tagay waa nin senatore avita wax la yiraahdo waa parliamentary oo abid oo xasaanadiisa leh oo ictiraafkiisa leh inkastoo on hadda maanta soo bandhigi doono waxyaabaha dawladdiisa iyo maamulkiisa 4 sano marka maanta kale xisbi waa la midayn karaa laakiin language ka daba socdo xisbigan oo Xasan Sheekh wato iyo xulufadii ma artay 20 kan bilood ka soo horjeeday dawladdan language ka ay isticmaalayaan ayaa u muuqato oo ilmaha yarna ay arkayaan inay tahay mid la dagaalamaysa dawladda maanta taagan wata laakiin maxaa soo dadajiyay in hadda oo xilliga waa sababtaan isweydiinayna sababtoo maanta 20 bilood waxay ugu agtahay dawladdan hadda taagan February 2019 8 February marka ka bacdin 2 sano u hartay marka waxay qabatay iyo waxayna qabanin iyo dawlad walbo marka la xisaabtama waa marka dabayaaqada dawladda يعني 4 سنة دمات كذا سيدو الشيخ شريف سميي مركو حسن الشيخ uga tanaasulo dibadda ka aaday wuxuu la kulmay doorashadii ugu dambeysay 6 bilood laakiin intuu xasan sheekh maartay dawladdiisa u yimiday oo 2 sano jirto oo aan ognahay qaladaadka faraha badan ee dawladda sameeysay mucaarid kuma noqonin marka language ka la isticmaalayo iyo waxa la qamiirinayo oo xisbiga ka dambeeyo what is behind waxay noqonaysaa dawladdan in la dagaalamo oo 2 sano u dhaman intay la gaarin ba lagu rido ay aad ugu muuqataa anigu taasaan aaminsanahay waan qaldami karaa laakiin xisbiyo inay isu tagaan anaga waa aaminsanahay 1969 waxa dawladdii madaniga ahay riday waxay ahayd markii 88 xisbi wadanka laga sameeyay oo inflation ka dhacday oo xataa xabada la soo qaatay oo sababtay inuu kacaan basho markii madaxweyne la dilay yaani termol ayuu wadanka ku jiray Soomaaliya maanta marka muxuu ahay xisbiyo fara badan oo gobolka Banaadir kaliya ka tirsan oo aan qaranko dhan matalaynin
in xisbiyo badan ay abuurmaan marka horeba qaladay ahayd haddii laakiin la isu tagaayo coalition la samaynayo fine waxba lagama qabo laakiin natureka coalitionka waa waxaada maanta aan ka hadlayno waa tahay markaan dib u laabano xusuusta hore xilligii madaxweyne xasan sheekh waxqabadka shacabka Soomaaliyeed ay ku xasuusan karaan muxuu noqonayaa markaan intaan u galin dhinaca kale oo ah waxyaabihii u qabsoomay way ama ay ku fashilaan horta marka ugu horeyso hadda khudbadan hadda aan ka aragnay iyo xarakaadkii markuu Turki ka soo noqday maaragtay nimankii parliamentarianka asaga taabacsanaa la 97 ahaa biriyahan dhanba ay ku socdeen waxaad maaragtay ku muuqanayso as a politician waxaad leedahay war ninkaanayto madaxweyne 4 sano soo noqday yaa la xisaabtamay يعني محو سمية أفرتي سنة وناقة يمحو سمية أو حمان مركا قفك أساقينو إسحسابي واي قد بدي سنة وحان ككوت قرينا يا one off أو قد بدي سنة هذي إنو معرة الدمعسية معارض حوقن أو إنتان باللقيارين بالدولة دكالي إنا لما يستطيب كذا إنو معرة أو هرمودو يهي هذا لذا وحا كمده وحان سوء إلين دوناه haddaan nahay xisbiyadan isu tagay waxaan soo celi doonaa karaamadii ummadda Soomaaliyeed su'aashaas horta asaga la weydiina karaamada oo maanta Xasan Sheekh oo ummadda Soomaali u soo celina aniga waxaan u radinayaa su'aashaas aniga waxaan u fahmay inuu asaga yahay nin maartay nadiif ah oo 4 sano aan waxba oo qaban oo wadanka wanaag u geystay oo yaani charismatic figure ku soo maamulo 4 sano oo maantana asaga u muuqato labadan sano dawladda taagan inay dawlad maartay cageeda ku istaagan ay tahay oo dawlad ay wax qaban karin inay tahay ayuu ummadda Soomaali u portrait gareeyay oo u illustrareeyay inuu soo celina karaamada marka waxa su'aalo isweydiin leh ilaahay subhanahu wa ta'ala nafta faray wuxuu ilaahayna leeyahay horta isxisaabi intaan adiga ku xisaabanin adigu isxisaabi waxaan weydiinayaa Xasan Sheekh maartay Maxamuud horta marka aad qodbadaha iyo kacdoonkan ay xisbiyada aad sameynayso marka hore ma isxisaabisay ma xisaabisay oo yaani wadanka 4 sano waxaad u geysatay ya iyo waxa aad ku sameysay ma xisaabisay ma fahamtay karaamada aad wadanka u soo celinayso yaani maxay tahay qasmahan maxaa lagu xasuustaa madaxweyne Xasan Sheekh madaxweyne Xasan Sheekh horta waxa la doortay horta wadankan 30 sano waa wadan maartay civil war soo ragaadiyay iyo muxuu ahay dagaal sokeeye horta qof overnight intuu madaxweyne noqdo wadankan uu hagaajin karo ma jiro shacabka Soomaali iyo madaxweynihiisa iyo dawladdiisa inay wada jir u maamulaan wadanka ma garatay ayadoo foreign intervention kana laga bixiyo ayay horta ku haboon tahay wadan ragaadi oo gobol u kala baxay oo maxay ahayd aan la isu keeni karin ayuu ahay ilaa dawladii Sheekh Shariif Xasan Sheekh wadanka qabsaday Xasan Sheekh waxa lagu xasuustaa maalintii ugu horeysay oo madaxtinimada oo maartay la wareeganay qodbooyinkiisa waxa kamid ahayd inuu 4 sano haduu madaxweyne u dhamaato inuu ku soo noqonaynin markii ugu horeyso وهذا أي كوت وقطبدي مركي لعلامة ساراي باش عالم كأوها لنت مادام أو ترانزيشن كي لقبحوا الدولة فيدرالية أي أو أها باش ومارتي عالم كأوها لنت واتي لندن انتلك كاني ومارتي نيو ديل كي لحدي قضب إنه مارتي جارسيا ودن ك 2016 كا أفرتيس سنة ومدحوينها ملايكن كبراك أوباما oo marka mar labaad la doortay xafladiisii asagoo maartay January tahay ku casumay White House-ka Xasan Sheekh yaani beesha caalamku waa u heelaneed dawladda Ingiriiskana David Makaram waa kan inta waday boqoradu u geeyay yaani on international maartay platform iyo wadanka gudihiisa waa loo heelanay in maartay muxuu ahay oo wax qabto Xasan Sheekh wuxuu markiiba ka bilaabay runta groupkiisa iyo xisbigiisa oo lagu magacaabo dama jadiid لكن تم الجديد مال معناها وفي ما جرت وهل حزب صوت انتاز ودم جديد يراد هورت انه باور كاسغا ودا ديبو وكو
باوركي legislative ka iyo maartay executive ka prime minister kiisana inuu carqaladeeyo oo shaqada ka wadi waayo saacid ee 10 bilood gudaheeda crisis ka abuurmay wadanka intuu hayay waa dawladda Xasan Sheekh dawladda Xasan Sheekh waxay martay 3 prime minister mid walba midka kala ku xigo ma garatay waxayna ahaday inuu wadanka one man one vote geersiyo inuu maartay dhaqaalaha ay beesha caalamka u heelan tahay sameeyo in federalismadan Soomaaliya lagu kabayo ya waa federalism aan anaga aaminsaneen oo garow principle loo bixiyo dawladii Xasan muxuu ahay Sheekh Shariif soo xambaaratay inuu hirgeliyo oo ummadda Soomaali goboladeeda oo ka hirgeliyo muxuu ahay maamul goboleedyadaas laakiin oo ku dhisan shicibka deegaanka degan iyo dawladda wadajir inay u shaqeeyaan dawladana inay noqoto facilitator ma aha iyada inay interpreter ka noqoto oo iyada maamusho oo iyada dadka maartay maamul goboleedka madax ka noqonay keento yaani kuma ay jirin systemka madaxweyne Xasan Sheekh waxa laga hayaa baasa jubbo oo ku dhawaaqday Axmed Madoobe inuu yahay maamul goboleed oo baarlamaanka Soomaaliya wadajir u qaadaceen aynan ma aqoonsanin inuu diyaarad u raacay ugu tagay baasa jubba oo yiri Axmed Madoobe madaxweyne tahay waa qaladka koobaad oo maamul u sameyntii maamul goboleedyada wuxuu kale Xasan Sheekh sameeyay oo dawladiisa ay tahay waxaan ka hadlayaa waa bodigii shakhsigiisa ma bodigii Xasan Sheekh waxa kamid ah gobolada Soomaaliya waxay ahaan jireen 8 gobol oo la sarrifo 18 gobol laga dhigay banaadir waxay ka koobneed shabeellada hoose iyo banaadir Muqdisho iyo muxuu ahay shabeellada dhexe waxa la isku dhigi jiray banaadir Xasan Sheekh wuxuu gaaray inuu shabeellada hoose oo yira waxay kamid tahay Soomaali galbeed koonfurta galbeed oo baydhabo ay maartay ay fadhido inay kamid tahay oo sida u gooyay horta maxay lahayd gobolkaas Soomaali amarkiisa ay ku timid arintaasi mise waxa ku dhacday dawladii federalism ka markii hore Soomaaliya application keeda meel ay raacsan tahay iyo meel example lagu dayda aanan lahayn waxay ahayd beesha caalamka waxay tiri gobol walba maamul goboleed waa inuu badda ka haystaa deked reason ka keenay in la yiraahdo Soomaali galbeed maxalla koonfur galbeed illa baraabay soo fariisanaysa baraaba illa afgooy waa caasimadii xamar soo waxa gartama waa laga doodi kari waa laga hadli kari soo koonfur galbeedna waxay ku dhawaaqday 6 gobol oo waxay sheegatay 3 gobol oo baasa jubbo ayna lahayn hadii loo raaco habka 8 gobol alta jubba iyo baasa jubba la kala dhijiray oo loo kala qaybiyay 3 gobol taaw asaga iyo beesha caalamka maxalla kay muxuu ahay Nicholas Kay iyo asaga iyo beesha caalamkana waxay fiirsanaysaa Soomaaliya waxa lagu introduce gareeyay maamul goboleed no matter haduu qalad yahay no matter haduu sax yahay laakiin Xasan Sheekh waa u facility gareey ko ta maamul goboleedadii waxaan ka wadaa maanta dhibka maanta ka taagan oo maamul goboleed la maamul la yahay markuu sida u gooy maqaamkii banaadirna wuu ka booday banaadirna 8 gobol bay ka bidixeen maqaamka banaadir oo maanta dhibaatada ka taagan tahay dawladda Xasan Sheekh sabab u ah inay ka boodo laba ma tahay waxa ku soo haray muxuu lahaa galmudug yaani iyadoo la raacayo 8 gobol oo 18 noqday inay laba ama 3 isu raacaan gobol walba markii 3 dawladda kacaanka ka dhigtay 3dii un baa la celiyo hal gobol bay noqotay Soomaa galmudug waxa la dhigi jiray galgaduud iyo mudug iyo galgaduud laba gobol waay heer marka Xasan Sheekh wuxuu gaaray inuu gobol iyo bar ka dhigo oo galkacyo la yiraahdo maadaama ay qoladii Puntland intaan bal la gaarin maamul goboleedyadaan iyo dawladnimo iyo muxuu ahay transition laga bixin ay sameysmeen maxalla 2098 Soomaa ay ku darsadeen ha ayaa Nicholas Kay iyo beesha caalamka iyo Xasan Sheekh waxa lagu heshiiyay in halfkaas loo daayo galkacyo magarate maamul goboleedka oo ku dhisan isiriyo marka runtu waa hadal qaladaadka waxa kamid ah
kii soo hareeyo hal iyo barka ahayne niman asaga uu raalli ka yahay oo lacag uu geliyey oo juhdi uu geliyey inuu inta isu keeno ma garatay oo 1.5 galmudug ka dhigo cabdikariim muxuu ahaay guuleed oo ku magacaabo qaladka kale ugu weyn oo xasan sheekh sameey waxa waaye isu keenta maxaa la yiraahdaa jowhar iyo hiiraan shabeellada dhaxay laba gobol on markii hore in the history in the past aanan wada dhaqmi jirin oo hal gobol ahaan jirin isku gobol ma ahayn hiiraanna kaligeed bay ahayd jowharna waxay ka tirsaneed muxuu ahaay ishaq banaadir inuu yiraahdo ayagana maadaama ay hiiraan hal gobol tahay ma istaagi karto according to the constitution ka Soomaaliya markaa jiray oo ma aragtay open u ahay revision laakiin sidoo asaga u fikiray ay tahay hiiraan in la hoos keeno muxuu ahay jowhar dadka iyo ummadda meesha deganne lagala ma tashanin ma garatay dibka ay waqti dheer baa galay laakiin xasan sheekh wuxuu ku adkaystay bay hog an kruugba inuu maamulka sameeyo oo maanta ma dhaleys dhibaatooyinka maanta galmudug ka taagan waa soo gaari doonaa dhinacaas iyo dhibaatooyinka dhex jira taa horta waxaa lagu xasuustaa dhibaatada maanta jirto ee dawladda Soomaaliya maanta oo madaxweyne Farmaajo oo madaxweyne ka yahay iyo prime ministerkiisa ay la qabsan la yihiin maamul goboleedyada waxa waa qaabka qaladka ah ee dawladii xasan sheekh oo madaxweyne ka ahay u maamushay maamul goboleedyada wata laakiin laakiin wuxuu ku guuleystay xasan sheekh soo lama dhigi karo in ugu yaraan maamulo la dhiso meeshii maamulo ay yeelato ay noqoto kabacdina laga tashan karo wixii ka qaldan wixii ka sax laakiin uu ku guuleystay in ugu yaraan maamulo ay noqoto maguul baad u taqaanaa maamul goboleedyo la isku bacriyay oo la isku qasbay oo sidoo asaga rabo u sameeyay oo sidoo asaga rabo raggi asaga bari maamul lahaa ee madaxweyne ku soo dooran lahaa inuu ma aragtay maanta maguul baad adigu haysataa dibka maanta yaala ee dawladda maamul goboleedyada يعني قابك فدراليزم ياس سومالي فدراليزم هرتو ما كفيعنان وهذا إنه regional system إن مارت لا أبورو لكن dhibaatada oo adiga aad hadda maanta dawladda Soomaaliya ay la heshiin la aday maamul goboleedyada maad u haysataa inay guul tahay Maxamed Salaad waa dhibaato ay dawladda Xasan Sheekh ay abuurtay waa koow inta waxaan uga baxaa maamul goboleedyada dhibaatada u geystay waa koow Xasan Sheekh madaxweyne wuxuu isku cabiray inuu asaga 4 sano oo ahay nin madaxweynaha wadani ah nin ummadda Soomaaliya wax u qabtay soo waxa gartay ma ta maamul goboleedyada maanta dhibaatadeeda si loo xalin la taagan yahay meel iga dhig wadanka madaxweyne markuu ka ahaa hantida ummadda Soomaaliya ay wada leedahay oo ummad Soomaaliya abaar ragaadisay colaad ragaadisay maxla fatahaad ragaadisay ina ummadiisa meeshu satal gareyn lahaay hantidii dalka ee dekadana ka imaanaysay macaawinadaha dibadda ka imaanaysay tii aeroboortka ka imaanaysay bangiga dhaxayn uu toos inta u isticmaalo oo asaga personally oo campaign ku galo laakiin wax inta baaray arintaasi inuu campaign ku galo taa ummadda Soomaaliya dhan baa soo ogaatay ma jirto waxa la ogaan lahaay hadii baaritaan cad la sameeyo baaritaan cad hadii la sameeyo inuu Xasan Sheekh hantidii dalka ku takrifalay cid walba og Soomaaliya witness bay u tahay Mogadisho wada tagto waa loo wada jeedaa ilaa nin taajir oo billionaire oo Trump oo kale ah oo dawlad qabsaday ma ahan Xasan Sheekh nin wuxuu ahay Soomaaliya caadi ah maxalla maxay ahayd Korea powerka marka hantidii ummadda Soomaaliya loogu tala galay ayuu wuxuu fursad u siiyay ama ha ahaato dhismaha maamul goboleedyada oo mainly maxay ahayd Ishaaq Hirshabeelle iyo Galmudug oo welina qaska ka socda maanta iyo tii doorashada oo ku galay ku qasbayay inuu 275 xildhibaan oo dalka at least asaga inuu 200 iyo googo yeesho laakiin dhinaca kale marka laga eego soo lama dhigi karo Xasan waxa uu ku madaxweynaha hore waxa uu ku guuleystay in maamul goboleedyo aan jirin oo markii hore asoo uu aasay la dhiso aqalka sare oo aan horay u jirin oo aan dastuurka ku qornay laakiin aan dhisnayn oo ku guuleystay inuu dhiso oo hadda wax shaqeynayo maamul goboleedyada matalaya oo taagan oo maanta lagu tashanayo
so arrimahaas laguma amaani karo maya dhismaha aas-aaskeeda ayaa horta in la maaragtay la dirsa ay u baahan tahay ani maamul goboleeda aan sameeyey maywayana ku sameeyey waxaa ka horeyso wadanka ma ka hirgashay yacni shantan maamul goboleeduu sameeyey oo dawladdiisa ay samaysay iyo dawladda cusub oo timaday ma hirgashay waxaan kaloo kuu sheegayaa wadan walba wuxuu ku socdaa muxuu ahaay xukuumadaha sare ya saddexdii baawar oo adduunkooba maaragtay lagu dhaqmo oo legislative iyo executive iyo maxay judiciary horta xagga judiciary-gane wuu ku fail garoobay dhinaca cadaaladda iyo dhinaca maxkamada wuxuu u sii daayay rag oo maxkamadaha meesha isaga uga horeeyey oo joogay oo qaribay inuuna ka qaadin inuu adeega garsoorka samaynin maxkamadda inuu maaragtay sare oo magacaabin maxkamadda dastuuriga ummadda kala celin laheedane inuu magacaabin dawladdiisa ayaa maaragtay 4 sano laga hayaa barlamaankii Soomaaliyeed ee xasaanada lahaa ee barlamaankii 9aad oo jawaari oo madaxweyne u ahaa gudoomiyaha u ahaa xasan sheekh maamul goboleedyadan maanta annaga madaxweyne ee arrimaha dibaddana annaga ka talinayna dawladda dhaxana nama xukunto waxay ka timideen markuu madal wax liira sameeyay madashaasayto oo shanta maamul goboleed iyo prime ministerka iyo muxuu ahaay gudoomiyaha barlamaanka iyo asaga waa 8 laakiin dawladda ka dambeysana waa ku raacday Soomaaliya way sameeyay maya dawladda ka dambeysay horta adiga ay sheegay anaga waxaan ka hadlaynaa taaskii xasan sheekh oo maaragtay Soomaaliya muxuu sameeyay wanaag iyo muxuu sameeyay xumaan ma garatay wuxuu xasaanada iyo karaamada oo hadda leeyahay waan u soo celinaa ummadda Soomaaliya wuxuu ka qaaday koow barlamaankii legislative ka ahaa ee asaga laga rabay inuu siyaasadana dejiyo ma garatay wadankana dejiyo maxay noqotay maamul goboleedka iyo madaxweynaha kaliya inay dejiyaan taas waa qaladaadka ugu waaweyn oo maantana maaragtay influence ay ku sameynayso dawladda hadda joogto lagumana amaani karo soo waxa garatay ma marka yacni haddii la yiraahdo xasan sheekh oo maxaad samaysay xasan sheekh wadankan inuu qaribo ma ahane wax wanaag ah u sameeyay ma jirto marka runta ku hadlo laakiin marka la eego hadda xilligii hore doorashada markuu oo laga guuleysanayay waxyaabihii ololaha ugu badan ay ku galay madaxweyne xasan sheekh waxa kamid ahayd in wax badan oo qabiye ah ay ka tageen ay u baahan yihiin inay dhameystiraan waxaad qabiyadaasi u dhameystiraan la doorto ma isleedahay hadda waxa uu u ololeynayo oo ordayo uu leeyahay in Soomaaliya dib ay lugaheeda ugu istaagto in uu ula jeedo in la dhameystiro waxyaabihii qaladaadka ah ee dhacayna la socdo محمد سلام ما ها قفك وحو أسيق كفي كرايو this is a country this is a people شعب إيو ودن أيان كهاد لينا شعب كا إيو ودن كانه إذ والبا أترتمي كرتو سياسيين مارت إنو يشوى اللوغو تلقالي ور أديقو حسن شيخ قبيل هذا 2016 قضبض اللحدي نيو ديلكا وحي هذا 1 vote إنو قارسيو marka aniga aan xulay xogta way ay u hirgeli weysay 1 man 1 vote waxa cadaaday xasan sheekh ballaanku sameystay iyo goboladan uu dhistay iyo dadkan structure-ka uu yiraahdo hadaad meesha istaajiso aday kugu soo celinayaan markuu dhinaca fiiriyay iyo markay 1 man 1 vote noqoto ummadda Soomaaliya oo dhan ee ka qayb galayso yaa laga badin ay tahay inuu dhinacan u janjeeray oo ma artay door biday inaynan dhicin 1 man 1 vote oo wili 4.5 ma garatay oo ku dhisan laaluush iyo maxal xasho inuu sameeyo marka taa ma dib u dhacbay ka noqotay adigan ku dhiibaa kowde 4 sano la siiyay I appreciate wadankan maxal civil war baa ragaadisay marka yaani Rome hasn't been built overnight baa la yiri yaani kaligiis wax ma qaban karin waxna waa qabtay Soomaha أنا مكو عندي عنكر قبيو وحيجة هاللي دايو ماشان دورشات جرتو 4 سنة لكن overall حسن شيخ قبيض وشيخ عمو وحيتاي 4 سنة وحو قربينه وهذا أنا مرة بعد نقربه واتا ما أذكر إنه إلا يهدا قرشيه يقابك ودمعسيها لكن مركز لقى وحقبت كيسيو هره xildhibaanada baarlamaanka oo markii hore odayaashu ay soo xuli jireen waxa la gaarsiiyay in
haba yaraatee dad un ay soo doortaan oo maamul goboleedyada deegaanadooda lagu soo doorto oo halkaasi laga soo xulo taasi mise guul ahayn oo xasan gaaray markii hore oo kow la yiri muxuu ahay qabaa'ilada waxa waa qabiil walba 51 ayuu dooranaa dadka dhan niyadoodu way fiicnaad anigaasa ka mid ahay oo hiiraan joogay hal sano oo la dagaalamay yani bacrintan la isku kabaayay muxuu ahay jawhar iyo hiiraan laakiin markaad shacabka ku dhex jirto diidan waxaad arkaysaa konton iyo kowga ma qabiilka doortay masalaaluush iyo criteria ma aragtay corruption bay ku wada yimideen ma garatay yani iyadii oo magaci guud la yiri konton iyo kow baa ninka xildhibaanka jifo walba ka dooranayso ayaa wuxuu yiri ku dhisaaleysneed ilan always waa 4.5 oo qalad bay ku dhisneed muxuu ahay marka hore waxaan ba islahayn amaba solution tahay soo waxa gartay ma laakiin solution ma ay noqonin intuu xasan sheekh rabay inay baarlamaanka soo galaan ma gartay compositionka baarlamaanka annaga waa iska ogolaanaynaa barkee waa ummad Soomaaliya baarlamaan dooratay laakiin haddana compositionka lagu soo doortay ma ahan mid ma aragtay meritocracy yaa maamuli karo yaa jifadaas ma aragtay u horseedi karo nin alaala ninkii karti leh oo aqoon-yahan ah oo wax u qaban karo waa laga booday ma garatay kii la rabo ayaa la geliyay marka tii hore oo 2012kii ay ku timid 135 nabadoon oo United Nations ka aqoonsatay iyo tan wax differ ah ay ku kala duwanayeen malaha waa one of the mistakes oo dawladda xasan sheekh ay samaysay marka ani ma ii muuqato waxba iga qabyo ahay maanta waa soo noqonaa mana dhihi kari aniga xasan sheekh ma soo noqon kartid waa nin siyaasi wadanku waa soo maamulay dad dibadda ugu soo noqdaan waa jira laakiin nidaamku hadda ku soo dardargalay waa tahay laakiin intii xasan iyo dawladdiisii banaanka laga eeday lahaa soo ma qurux badnayn in haddii qaladaad jireen lagula xisaabtamo oo loo yeero oo wax laga weydiiyo qaladaadka laga tirsanayo maxamed salaad meeshan dawlad baa jirta oo la aqoonsaday 2000 muxuu ahay 17 February dawladda xasan sheekh virtually way dhacday dawlad kala soo kortay ummadda Soomaaliya waxay la xisaabtamaysaa dawladda markaa taagan wax qabadkeeda hadday ummaddu wax u qabatay hadday wili fadhiid ka tahay ma garta hadday horumar keentay dawladda markaa taagan ayaa lagu la xisaabtamaa mahane dawlad dhacday leaderkeeda waan soo noqonahay la xisaabtamo horta wax oo suuroobay laakiin dawladda ka dambeysaba macnaha iskuma dayin in qaladaadkii jiray haddii dawladda ka horeysay qaladaad jirtay ma aanan arkin ilaa iyo hadda cid lagu la xisaabtamayo qaladaad hore u dhacay right I agree with you taas waan ku ogolahay laakiin dawladdan oo hadda jirto sidaan annaga hadda u jeedno siyaasiyiinta iyo waxgaradka oo aan nahay outsider aan dawladda ku jirin raacsaneen tii xasan sheekh tan raacsaneen inaan dhaliilna mahane معارضنا كمنهن because waxaan rabnaa wadankiina oo cagiisa ku istaago ee ummadan Soomaali ee maaragtay la bahdilay ay dawlad system taagan ay la soo baxdo laakiin waxaan ku sheegaa maalintii la magacaabay 8 February immediately soon after waxa lagu bilaabay xisbiyada markaa jiray mucaarada lagu bilaabay yaa ku bilaabay waxa ugu badnaay boqolkii xildhibaan oo xasan sheekh maaragtay asxaabtiisa xulufadiisa maxay ugu bilaabay sababtu maxay tahay sababta ilaa hadda lama hayo sababta ilaa qofka markuu wax qabto to be honest haddaad hadday weydiiso aniga dawladdan hadda taagan waxyaabo badan waa qabatay wuxuuna xasan sheekh qaban bay qabatay waa tahay tan waa gaari doonaa iyo qabadkeeda markii xilligeeda la gaaro iyadoo in embryonal stage ku jirto oo hadda la guur yani honeymoon ku jirto ayaa lagu bilaabay in la mucaarido waxa ku bilaabay shanta maamul goboleed يعني باورك يا معانك دولة فدرالي وحلي يراهدو دولة فدرالي محي ككوبنتها waxay ka kooban tahay dawladda dhexe the central government waa barlamaanki waa madaxweynaha waa maartay muxuu ahay golihii wasiirada ma garatay maxkamadii dastuuriga ah Soomaha iyo maamul goboleedyada marka maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe competency u dhaxaysay qolo walba competencedeeda lama cayimin dastuurkan cusub dastuurkan qabyada oo wali dhamaaneen lama cayimin waxba baa la abuuray markii wax sidaas all of sudden la abuuro oo aan jirin sharci xakameeyo kala celiya hadda waxa tiri dawladii xasan sheekh
أقل كسر مية سمينين أقل كسر purpose كله سميه ورت محوها وحواي معمول قبل هذه إني ما أرتاح وكنته house of إني وكيل كالنقدان ولما أردت وضع الشقين أما حكمين أقل كسر أي معمول قبل هذه كله رقم مية أردت ما جرته معمول قبل هذا ولا مدحوينه ولا أقل سر إذا أي كقاعدنا يعني ما جرته this is one of the mistakes بركة أقل كسر مركي اللي سميناي حتى لو ما سمين استطوط دي وكل قين لهاي لو ما سمين وكو دولة ديو جرته معمول قبل هذه دي إني أيجا إسكا يعني دولة الدحاء برلمانكا عالنكا فورنكا هاي لعكته عيدنكا وحواي دولة الدحاء يا إسكاله maamul goboleedyada kuma laha powerkaas maamul goboleedyada hadii sharci toosan la sameeyo madaxweynena xataa in la yiraahdo waa qalad laakiin talagelin ayay ku leeyihiin okay waxay leeyihiin regional autonomy gobolkaas ay ayaga markaa xukumaan ayay leeyihiin inay baarlamaanka ka sameeyaan oo goladeegaana ka sameeyaan oo yaani danaha gobolka laga shaqeeyo laakiin madaxweyne gobol ayaa Emiraad aada ama Nairobi aada ama Addis Ababa aada oo dantiisa ka hadlay meel ay ku qoran tahay federalism around the world ma jirto maxamed salaam wata hadda qaska oo fowdada ah inay maamul goboleedyadii iyo muxuu ahay dawladdiis hadda jirta ay hashiin laayeen waa dawladda Xasan Sheekh asaga ayaa dhibkaan abuuray wata hadda madaxweyne Xasan Sheekh iyo xisbiyada siyaasadda oo waliba la dhigi karo xilligii hore aad ay u kala fogaayeen maxay tahay sababta midaysa xilligan waxa sababta waxa waaye gaalo waxay ku maamaadaa the enemy of your enemy is my friend soo waxa garta ma siyaasadda had mar walba way isbedeshaa shalay hadii lagu mucaaridayo Xasan Sheekh oo xisbiyadaas ay hatta anagu hiiraan joogno loogu yimideen oo mucaarad ka ahaayeen naymid kulligood fiqiya ka koowe waxa ku xigay maxal daa Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Cabdi Weli Tarsan yani hiiraan bay lagu yimid mucaarad bay ahaayeen أنا حاجة وأنا سفر قرينا هاي أنا معارض نمطة عن دولة دين إنه إيران إنه هوست هذا الجوهر سواء قلت ما ولا جيه مدي وحي اللي change of circumstance سياسة عصوبة بلابتي أو مدحوينه عصوب برايم مينستر عصوب يعني برايم مينستر كا مدحوينها لما تفرس أفكار توا لما سلك دواد وصدح أفضل بلاد لا أي حد هي برايم مينستر مدحوينه ونول بنو كومبتنسي ديسا ما كانت أولى فرق جنين تاس وحواي معركة تاس ويدبيسها مين واي دولة حسن شاغنة تبوكي بلود أقول برايم مينستر وعوني هدان أنا وزير كان وتا آذان وضنين وماشي وكابحنا مركز داد كان هاد أوحشي دولة دان change of circumstance وسياسة ما قالت محي كم مدوبين لكن تاسو معناه ما نقولش وحي كم مدوبين إنه دولة دان إنتين أفرت السنة لما يسنين أفقن بيان أي كم مدوبين وح أمد الصومالي قدامه وح أمد هداد عرفته محوه محمد سلادو مقالة حمر أو عاصمة دي برلمان كان لبدا بقول إتدواتي الشمت فريسته بارتي لديه جر دراويشته هوست هذا أي دي بيباد دقن مساكينتي أدونك سوق عدي أياد دقن هوستو الدولة ده هوست هذا oo aanan laga rareeyn waxna loo qabaneyn yaani muxuu ahay kala fogaanshaha dawladda Xasan Sheekh maxay ka qabatay tan wali wax kama ay qaban Soomaa marka qalaadaadkii oo Xasan Sheekh galay oo maanta la rafanayo ani uma maleynayo xisbiyadan hadda midoobay way midoobi karaan the more ay midoobaanne ma garatay waxay u fiican tahay inaan blue partyism wax la yiraahdo oo fara badan oo inflation oo faraha ka baxay inay sameeyso waa loo baahan yahay laakiin ula jeedooyinka iyo purpose-ka Xasan Sheekh iyo xulufadiisa ay wataan waa mucaaradnimo waa ambition waa in dawladda aan dib ugu soo noqonaa wax Soomaali u dan ma jirto I'm sorry to say ummadda Soomaalida inay fahanto move-kan hadda socdo waa tahay ugu dambeyntii aniga waliba qaybtii kale barnaamijka aan rabnay inaan ka hadalno aan ka gaari karin qorshahan hadda madaxweyne Xasan Sheekh uu wato halkee ayuu saldhiga karaa ay kulata igu su'aal qorshahan hadda madaxweyne Xasan Sheekh oo xisbiga ku dhisayo siyaasadda Soomaaliya hadda uu kaga noqday in qayb muuqata oo waliba uu si cad u sheegay inuu doonayo in awaamirta iyo talooyinka la bixinayo wax ku yeeshaan sida ay islaadahay way ku meel dhali karaan horta sideedaba Maxamed Salaad dawlad barlamaan leh
دولة إنه حزب معارض إيه محافظ كليشان أدون كودنا كودقمو يعني ما دعي كرتورت الدولة إنه كلية محافظ لأهاتو واي واحد توسين كرا مجرو مركب واحد لو سميه بكونتر بارت أو محل معارض كا وهو إن دولة دالة توسيو سواء قرتي ما إذا دي سنة ملا حزبية بدنا إلا جي بذوه لكن حسن الشيخ وحن كوها يستنى وعيته ودن كأفرت سنوه هاي وماملوا واي رغب حنه وكدافي مركا فنتو كوشيكو ما أنت all of sudden ما قرتي مهدي سوسيراتي أو ولي سوسيراتي انتو نقضو iyadoo nan weli dawladdan mandatekeedii dhammaan asoo madaxweynena soo kafar gareeyay inuu 2 sano kadib inta yimaado ololo kicin ku sameeyo dawladdan iyo carqaladeyn iyo mucaarad waa totally wrong ummadda Soomaaliya waa iska qabataa haddii isbiyada ay midoobayaan ay liidar kala keenayaan oo yani transparency yani inay mucaarad dawladdan toosina dawladdu